الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سيديدي طبنات هي كتاب كأني مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله وقيتي فوائد الشيخ سوء أروريي وحاكمذا قفك رنت بدن محب جعل دينتا إيه حقه haddii uu in nataqa lilaahi wabillaah haddii uu hadlaayo wuxuu u hadlaa alla dartii dayib haddii uu aamusana wuxuu u aamusayaa allah dartii marka xadiidkii rasuulka sala allahu alay wasalam man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut soo maahin qofka ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan ama khayr ha sheego ilaahay dartii ha u hadlo ama ha iska aamuso alcilmu waa ghinan bilaa maal وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال علمك وحل هذا وغنى وقفك إلهي علم أوسيي وقف غنيئة وقف هضنة يسوون بحوله سنين إله موسى هل الشلم به سنين لكن قف كاس وغني وي غني وي قف كاس عز إيه شرف بونو كونو ليهي إيه أود isagoo oon wax dadaba hadduu raba aan lahayn wuxuu leeyahay awood wax ku maamulana wuu haystaa isagoo oo laga yaabo wax shurta iyo rijaal iyo rag iyo waxda garab boodaya midna inuusan jirin halka kelimad uu sheekhu yidhaahdo ayaa fulaysa oo laga gilgilanaya oo magaalooyin dhan maaragtay hal kelima markuu yidhaahdo ayaa maaragtay ummadda oo dhani wada dareemaysaa ayib من قواعد الشرع شرع قواعدي سوحا كمذا شرع قواعدي سوحا كمذا ويابها قواعد أهو لسلوى فقصية هي أن من كثرت حسناته وعظمت قفك حسنات كيسو بدنية هي وكان له في الإسلام تأثير ظاهر يعني إسلام كان تأثير كله ومدى إسلام كشقية فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره يعني وحا لورد نافيا وحيابا أن قفك لورد نافين با لورد نافيا ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره وحا لو عفينيا وحا عدك لو عفيين با لو عفينيا محال جوضا يعني قفك آلاف من الحسنات بوليه كمنيال وناك بوحيستا فإنه يسامح بالسيئات والسيئتين marka hal xumaan oo ka dhacday ama laba xumaanood oo ka dhacay waa loo dhaafayaa allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu miisaan saarayaa maalinta qiyaamo xasanaadka adoonka iyo sayi-aadkiisa wanaagaaga iyo xumaantaada marka haddaba tii qaalib noqoto ayuuna ta'hiir ku noqonaya marka waxaa laga wadaa tusaale dadka culimada aba aan mithaal ka soo qaadno nin sheekh oo caalima baa masala ka dhacaysa ama hal arrin baa ka dhacaysa hal khalad buu gelayaa halka khalad uu sheekhu galay in lagu tuuro maaha in lagu naco maaha in xaqii looga jeedsada maaha in cilmigii uu aqrinayay ee laga taga ma ah in dadku marka maxaa jira boqolaal wax oo wanaagsan buu leeyahay waa binu aadam laakiin hal arrin oo ka tagtay marka waa yuqtafaru lahu maa laa yuqtafaru ligayr waa loo dhaafayaa hal arrin iyo laba arrin iyo 10 ka dhacayba waxaa qarinaya wanaagga uu leeyahay ee badan ee kala qarinaya ayib waxyaabaha ugu wanaagsan axsanu maa unfiqat fiihi alanfaas yacni waxa ugu fiican oo qof uu ku mashquulo sideedasaba waa atafakuru fi aayaati illaahi wa cajaa'ibi suncih aayaadka ilaahay in lagu tafakuro kitaabkan miftaax daar sacaada waxyaabuu aadka uga hadlaya waxaa ka mid aada ugu dheeraaday cajaa'ibta rabbi waxyaabaha khalqigiisa siduu u abuuray iyo makhluuqaadkiisa ayaa ka mid in lagu tafakuro arrimaha noocaas iyo in qalbigaagu uu maaragtay u gadoomo yacni makhluuqaadka uu ka tago duuna shayin min makhluuqaatihi yatacallaq billaahi subxaanahu wa tacaala alla xaggiisa uu u jeedsado markaad dareento cajaa'ibta rabbi iyo suncadiisa iyo maamulkiisa rabbi subxaanahu wa tacaala shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah baa wuxuu yidhi oo sheekha ibnu qayim ahaa hadal uu yidhi buu soo guuriyey man faaraqa adaliila dalla sabiila wuxuu yidhi qofka daliilka ka taga daliilku waa aayadda qur-aanka waa xadiidka rasuulka waa adilada sharciga qofkii ka tagay
wadada waa ka dhumaya jidka saxda uu ka dhimaya walaa daliila ilaa bima jaa bihi rasuulu salawaatu llahi wasalaamu caleyh daliil kalena maba jiruun ilaa wixii dee rasuulku la yimid ama aayadii qur-aankeed ama xadiidka rasuulka ilaa waa ka alcilmu maa qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ulul carfaani cilmikaasaa la yidhaahdaa qaala allahu ilaahi baa yidhi qaala rasuulu rasuulkaa yidhi qaala asaxaaba asxaabu rasuulillahi baa yidhi kaasaa cilmi la yidhaahdaa imaamu sufyaan thawri baa isaguna wuxuu yihi man araada addunya waalaakhira qofka adduun iyo aakharaba raba fa calayhi bialab alcilm loo fiirso adduun ma rabtaa cilmiga baro aakhara ma rabtaa cilmiga baro labaduba halkaasay ku jiraan bishri nin la odhan jiray bishri alxaafi buu ahaa baa isaguna wuxuu yihi low fakara annaasu fii cadamati illaahi maa casow haddii dadku ay ku fikirayaan cadamada ilaahay weynaantiisa wamaa ay weynaanta rabbi hadday ku fikirayaan maba ayna caasiyeen